Facebook sida uga sameyn kartaa $50 ilaa $100 isbuucii ugu yaraan. Kama hadlayo qofka Facebook uu kala kacsan yahay ee active-ka ah ee follow-ga badan haysto. Waxaan ka hadlayaa qofka bilowga ah ee cusub ee soo buuxiyo shuruuda Facebook ee looga baahan yahay in qofka uu lacag sameeyo. Markii hore waxay aan jirtay waxa lacag laga sameyn jiray in-stream ads-ka, laakiin hadda Facebook program cusub ayuu soo kordhiyay kaasi oo lagu magacaabo content monetization, kaasi oo waxyaabo fara badan aad lacag sameyn kartid. Muxuu yahay barnaamijkan? Haddii aad ka heshay muuqaalkan ama aad xiiseynaysid, la wadaag 3 qofood ilaa 5 qofood oo asxaabtaada TikTok ama Facebook ka mid ah. Hana moogaan muuqaalkan in like iyo love-ka aad ugu dadaashid ama noo saartid. qaybta hoose comment-gana fikirkaada nagu wadaag. YouTube-kayga Cabdi Xasanna 100,000 waxira ugu dhiman nagu tuura. Soo raac ilaa dhamaadka. Markood waxaa soo galayaa Facebook. Adina sidoo kale Facebook soo gal, kadibna waxaa imaataa page-kaaga. Kadibna waxaad ku ofanaysaa meesha ay ku qoran tahay professional dashboard. Kadibna waxaa ku soo bixi doono waxyaabihii aad sameysay, views-kaaga, inta muuqaalo aad soo gelisay, inta meel ay gaareen, lacagta aad sameysay, waxaas oo dhan ayaa mataqaanaa ku soo bixi doona. qaybta hoose ayna calaamadeen hadda aragtid waxa ku qoran lacagtii aan sameeyay 28 days ama 28 beri ee la soo dhaafay ama 28 beri. meesha ayaan ku dhufanayaa. kadibna waxaa arkaysaa lacagta total inta ay tahay. kadib waxaa ku dhufanayaa marka waxaan leeyahay last 7 days iga dhig. last 7 days marka aragtid waxa ku qoran $338 ayuu mataqaanaa 7 beri la soo dhaafay uu sameeyay. haddaa dhaha marka 24 beri la soo dhaafay 24 beri la soo dhaafay meeqoo ka dhigaya waxa waaye $410 waaye. okay, markii horeeto wuxuu ahaan jiray oo kaliya muuqaalka iyo reels in lacag laga sameeyo. hadda dii kor u qaado waxaa arkaysaa meeshan reels waxaa la dhahaa muuqaalku wuxuu noqonayaa reels marka uu 60 second uu ka yahay muuqaalkaaga 1 daqiiqo uusan gaareynin ama 59 second uu yahay ama ka yahay ayuu wuxuu noqonayaa reels. shuruudaas ku xiran. shuruudda labaad waxay tahay muuqaalku waa inuu ahaadaa portrait ama vertical inuu ahaadaa, inuusan ahayn horizontal ama landscape inuusan ahaanin. muuqaalkaaga haddii uu ka badan yahay 60 second oo portrait yahay muuqaal caadi ahaan loo xisaabin doonaa. haddii oo muuqaalkaaga oo landscape ama mataqaanaa ishig horizontal yahayna muuqaal caadi automatic u yahay. laakiin muuqaalkaaga haddii oo landscape oo yahay ama horizontal oo yahay sida caadiga oo YouTube-ka ka daawatid oo 60 second ka yahay ma noqon doono reels. reels-ka intuu sameeyay oo ujeedin lacagta ugu badan mataqaanaa asaa laga sameeyay. waxaa kaloo ku xigo muuqaalada caadiga la soo geliyo sawjidin lacagta labaad mataqaanaa intaas ayaa sameysay. history-ga lacag lagama sameyn jirin. hadda history-ga dal muuqaal soo gelisid lacag sameynaysaa, taasoo jaanis u ah dadka mataqaanaa muuqaalada soo geliyo history-ga. hadaad gabar ahaa wiil ahaa extra bonus week walba waxaa leedahay challenge oo aad soo buuxinaysid muuqaaladaas heerka ay gaaraan, qaabka aad soo bisgaraysid, inta love laga bixiyo, interaction laga bixiyo, inta comment laga bixiyo, waxaas lagu qiimeynayaa. kadib extra bonus soo jidin lacag mataqaanaa oo $7 ku dhawaad laga sameeyo. okay, text muuqaal hadda qoraal soo gelisid lacag sameynaya. marka hore ma lahaan jirin, laakiin hadda qoraal soo qorto xataa dadka aan wajigooda rabin iyo sawirradooda rabin oo qoraalada soo post gareey lacag sameynaysa Facebook. waxaa kaloo ku sii xigo photos soo jidin hadda sawir soo gelisid oo dadka qoraalka soo gelin aan ahayn oo sawir la soo geliyo maalka qoraalka soo qoro lacag sameynaysa. marka barnaamijkan lagu magacaabo content monetization-ka barnaamij aan caadi ahayn waay. marka qof walba ee u furan tahay shuruudan waxa waaye waxaa kaaga xiran tahay inaad haysatid 5,000 ilaa 10,000 oo macnaha Facebook followers inaad haysatid. kadibna waxa waaye lacag badan aad sameyn doontaa, laakiin qaabka wanaagsan oo isticmaal ha u isticmaalin qaabka xun inaad mataqaanaa dadku aflagaadayso sawir qaabina soo gelisid iyo dad dow inaad muuqaalada soo qaadatid. dadka qaarkood oo Facebook isticmaal muuqaaladooda aad soo gashatid waa laga xiri doonaa. anada muuqaalkayga ka qaadatay TikTok aad soo gashatid waa ka xiri doonaa sidoo kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. lacag sidee ugu sameyn kartaa Facebook adiga oo Soomaaliya joogo ama Afrika joogo? macquul lama tahay muuqaalada inaan ka soo geliyo Soomaaliya anigoo joogo? marka su'aashaas ama labada su'aal rabaa inaan ka jawaabo. inta aan ka jawaabo muuqaalkan xaqiiqsi oo love-ka ah share-na u dhig asxaabtaada 3 qofood ilaa 5 qofood asxaabtaada TikTok kamid ah. qaybta comment-gana su'aasha asweydiinaysa maskaxdaada ku jirto oo Facebook iyo sida lacagta lagu soo biyo iigu soo qor
insha Allah waa kaaga soo jawaabi doonaa. Marka su'aasha ah aniga oo Soomaaliya joogo lacag ma ka sameyn karaa Facebook? Nacam, haa waa ka sameyn kartaa. oo dad fara badan oo caan ah iyo dad kale oo aan la garanaynin oo lacag sameeya ajiro oo aniga aba ay xaqiijin karo hebel ay idin karo. labo, macquul ma tahay in aan muuqaalka aniga aan soo dhigo aniga oo jooga Soomaaliya? macquul ma tahay? nacam, waa soo gelin kartaa waliba adiga u baahneen VPN iyo wax iska dawleeg adigoo na sameeynin ayaad mataqaanaa soo gelin kartaa muuqaalka adoo joogo Soomaaliya. Okay, waxa u baahan tahay oo kali ah in aad haysato qof joogo Europe ama America ama Asia wadamada markaas laga ogol yahay ama wadamada markaas mataqaanaa laga ogol yahay in Facebook lacag laga sameeyo. digniinta koowaad waxay tahay qof aadan aqoonin ama qof oo aad isbarateen ama qof aad taqaanid oo wadan aanan deganeyn. tusaale ahaan qofka Malaysia jooga, Saudi Arabia jooga, Turkiga jooga, wadamo mataqaanaa wuxuu jooga adiga oo ku meel gaar ah oo qofkaas oo deganaansho toos uusan lahayn ama meesha uu degnayn. qofkaas oo kale tada ku xiratid akoonkiisa hadii uu ka soo tago wadankaas ciwaankaaga wuxuu noqon doonaa payout-kiisa in uu mataqaanaa in muddo ka maqnaado ama aan lagu soo celinba. marka waxa u baahan tahay qof adminka ku haayo, macnaha bangi kaar mataqaanaa loo baahan yahay. dad baa ku dhahayeen qaabkii lacagtu soo dhacay muu baahnid xataa bangigiisa iyo waxaas u baahnid. marka sababta ugu baahneen waxaas dhanna muuqaalka ta idinku faahfaahin doona. qaybta commentigana su'aasha ku soo qor. su'aasha ugu badan ee soo noqoto oo meesha lagu soo qoro ayaan ka soo jawaabi doonaa ama muuqaalka soo sameyn doonaa insha Allah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.